nin abi cataab la oran jiray yaa wuxuu iska ahaa nin yani zaahid oo iska suufi oo meelaha iska wareego ahaa qubuurtu iska geliya duurkaasu magaalada iska soo gelaya markaasuu fadakhala yawman almadiinata magaalada madiinu maalin soo galay liyazuura inuu soo ziyaarto akhan lahu fi llahi tacaala magaaladii buu soo galay inuu yani nin saaxiibkiia uu soo ziyaarto darteed ko fawajada wuxuu helay qilmaana amiiriha magaalada amiirkeedii ninkii magaalada guddoomiyaha ka ahaa wiilashii uu dhalay ay nasr binu axmed baa la dhihi jiray khaarijiina min daari ayagoo gurigoodii ka soo baxay waa gurigii ninkii yani guddoomiyihii magaalada gurigiisii waaye bilmalaahi maxay wataan wax alla wixii alaabtii lagu ciyaarayay wataan waxa muusikada iyo balaayada iyo wax lagu garaaco ayay wataan oo guriga kala soo baxeen waa fa rafaca ra'sahu madaxuu kor u qaaday ila samaa wastacaana billahi tacala ilaahay buu kaalmo weydiistay wa xamala calayhim bicusa markaasuu ushiisii buu la fuulay wiilashi ilaahay waad aragtaa waa yani ninkii madaxa magaalada xukumayay baa dhalay caruurtii soo maha ilaahu adiga dartaa baan munkarkan u duunayay igu kaalmay markaasuu ushii la fuulay wiilashii buu la galay ushii waa garaacay wey waa carareen gurigay ku carareen marka fawalluu waa jeesteen munhazimiina ilaa daarilamiir bay isku xareeyeen markaasay u sheegeen oo ninkaasaana laaye wey neeryahay hala soo qabto buu ninkii carruurtii madaxweynaha garaacay ninkii guddoomiyaha carruurtiisii garaacay soo ma hala soo qabta ayuu yidhi amar buu bixiye way markaasaa la keenay hortiisaa lasoo istaajiyey markaasuu wuxuu ku yidhi amaa calimta miyaada ogeyn ana man yakruj cala suldaan ninkii suldaanka ninka magaalada xukumaya ninkii kusoo xadgudbo yataqadaa fi sijni inuu xabsiga ku qadaynayo sooma ogid qadadiisu waa in la xabaasan un xarig buu ku jiri aga faqaala lahu abu cataab baa wuxuu yidhi amaa calimta miyaada ogeyn adigu annahu man yakruj cala araxmaan ninkii ilaahay isku taago oo diintiisa ku tunto yataqadaa fi niiraani inuu naar ku qadaynayo adigu sooma ogid faqaala lahu lamiiru baa wuxuu yidhi man wallaaka alxisba yaa kuu dhi horta inaad yani munkarka suuliso oo yani wanaagga aad samayso yaa madax kaaga dhigay oo yaa ku amray inaad arrintaa fuliso horta faqaala lahu wuxuu yidhi wa anta man wallaaka alimaarata adigu yaa guddoomiye kaa dhigay horta yaa adiga magaalada ku dhiibay faqaala wuxuu yidhi wallaanii alkhaliifatu ninkii khaliifkii muslimiinta ah ee weynaaba magaaladan aniga guddoomiye iga dhigay faqaala lahu wuxuu yidhi wa ana anigu wallaani alxasbata raba alkhaliifa khaliifka rabbigiis baa anigana iga dhigay sooma ilaahaygi yani wax ibaray oo culummada iga dhigay yaa de anigana i amray de inaan xumaanta zuuliyade wanaagana aan amro sooma ilaahay baa khaliif iga dhigay hadduu adigu ninka khaliifka kaa dhigay rabbulkhaliifa baa aniga i amray khaliifka rabbigiis faqaala wuxuu yidhi wallaytuka alxasbata bisamarqanda haddaan kaa dhigayaa buuri magaalada samarqanda la yidhaahdo haddaan kaa dhigayaa buuri ninkii xumaanta zuulin lahaa wanaaggana fari lahaa adigaanba kaa dhigaya qaala wuxuu yidhi cataab cazaltu nafsii canha naftaydii waan ka cadliyey buui mas-uuliyadda aad ii dhiibtay oo hadda ad madaxa iga dhigtay anigu waan iska cadilay buui waan iska cadilay qaala wuxuu yidhi alcajabu warniyahu yaa baad leedahay aayahay min amrika alcajabu min amrika amarkaaga waan la yaabay taxtasibu xiina lam tu'mar adoon lagu amrina yani waan ajir malaysan baad leedahay oo wanaaggii baan faraya xumaantina waan reebaya wa tamtanicu xiina tu'mar mar alla markii madaxa lagaa dhigayna waad diidaysa qaala wuxuu yidhi liannaka adigu idaa wallaytanii haddaad hadda mas-uul iga dhigta cadaltanii berri unbaad i cadlin ood yani aad i ridaysaa wa idaa wallaanii rabbi rabbigay laakiin hadduu ii dhiiba lam yacdilnii axadun axad i reebaya i cadlinaya ma jiro faqaala alamiiru wuxuu yidhi sal xaajataka nin iyo nin cajiibaaba tahay nin weyn baa tahay qol waxa danahaaga ii sheeg markaan wax kula qabta marka ninkii magaalada xukumaan haye maxaad u baahan tahay oon kuu qabtaa qaala wuxuu yidhi xaajatii xaajadaydu an tarudda calaya shabaabi dhallinyaranimadayda ii soo celinayo inaan yar duqoobay soo maarita ha haddaa wax ii qabanaysa nin dhalinyaro iga dhig qaala wuxuu yidhi laysa daalika ilay anigu arrintaas ani aan samayn karo ma aha dhalinyaro kaama dhigi karo qaala wuxuu yidhi xaajatii an taktuba ilaa maalik haddaba haddaad taas qaban weyde waxaad kaloo ii samaysaa warqad ii qoro maalik khaasinu jahannama maalik oo jahannada furaheeda haye yani warqad u qor allaa yucadibanii inuu inay cadaabin qaala wuxuu yidhi laysa daalika ilay taasna waxaan qaban kara maaha qaala wuxuu yidhi xaajatii an taktuba ilaa ridwaan waayo ridwaan warqad igu qor khaasin ljannati ah an yudkhilani janna jannada inuu igeliy qaala wuxuu yidhi laysa daalika ilay anigu kaasna ma awoodo qaala fa ana anigu maca rabbi maciis baanay alladii huwa asagu maaliku lxawaa'iji wax alla wixii loo baahdo o dhan ba asagu milkiyo danahoo idinku laha ayahay kulliha laa as'aluhu xaajatan ma weydiisto ilaa ajaabanii ilayha aaye wuu ajiibayaa haddaba iska kaydaa rabbigaasan maciis ahaan rabbi asaga waxba ka cajizayn haddaan janno weydiiyana isiinayo haddaan naar ka iga magangelinayo haddaan xataan dhalinyaro hadda iga dhigayo
ربي قاسنا يسوى وحبا أسوان كعجيزة إننا هذو يدامر كواي فخلى الأمير سبيله ورحوه سيداي كلا حلو بالنسبة كلا حلو فذهب مركز اسكت كيوا واسكت مركز هذا داعي إن إلهي كحلنا عتاي أم يعني مدحض وحبا